qofku waa inuu xaaladiisa jirkiisa la socdaa iyo sawirada uu galay iyo marxaladaha uu maraya 10 sano 10kii ka horeeyay 10ka ku xigay 10ka ku xiga waa inuu halku marayo eega jirkaagii berigii hore kaaweedaysna imika wuu coodcooday timihii madooba way caddaadeen qofkii sida fiican u taagnaa wuxuu noqday mid soo gotay waman nucamiru nunakisu fi lkhalq sidaas uu noqday mid u soo gotay oo gaabtay oo rifan iyo laysan ku dhacay marka tan waad ku cibro qaadanaysa ha isdhaafinin waana xaaladahaas dhahada xagga hadaba lagu socdaa maxaa ka dambeeya bool kastoo giijisnaan jiray uu ku dabacay xagaad ku socotaa waa ayaamihii u dambeeyay tan qofku waa inuu iska diyaar garoobaa idan waxyaabahaasina waxay ka mid yihiin waxyaabaha bawaacidka ah inaynu geerida iyo aakhiro xusuusano oo aynu diyaar garowno inagu dhiirigelinaya وهذا ما أقوله وأستغفر الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة الأنبياء اللهم توفنا غير مفتونين ولا مخذولين يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.